ma ka hor imaatay magaaladaada? Yurub iyo Maraykan ma ku caajistay? xaas cusub ma u baahatay? marqaan iyo qaylaad ma u xiistay? amaba madaxweyne waddan ama gobol ma lagu doortay? haddii ay jawaabtaadu haa tahay, booqo Itoobiya, booqo Itoobiya. madaxweynaha dowladda Somaliland iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa waxa ay u ambabaxeen wadanka Itoobiya. dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u ambabaxay wadanka Itoobiya. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. safarka madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa wuxuu ku aadan yahay dalka Itoobiya. dadka dhan ayaa u socdo Itoobiya, adigana booqo Itoobiya. maanta waxaan u dhoofayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa, iyagoo safar hawlo shaqo ugu kicitimay wadankeenu jaarkana ee Itoobiya. booqo oo ku raaxayso safarkaaga Itoobiya. dadka kalena ugu faan in kaliya lagu casuumay. waxaa marka farxad inoo ah in Soomaaliya cidda kaliya ka qayb galayso marti qaada ay tahay Puntland. maalin cad booqo Itoobiya. habeenkiina booqo Itoobiya. baabuur ku tag Itoobiya. ama diyaarad yar oo shimbir u eg. ama diyaarad weyn. qaab walba ku imaaw oo ku soo dhawaaw Itoobiya. uma baahnid dalkugal ama fiiso, waayo ayaguba fiisa kuma soo qaataan. maxaan ka qabanayaa Itoobiya haddii aad tiraahdid waa su'aal fiican.
waayo London ama Helsinki markaad aadid waxbaad ka soo qabanaysaa balse Ethiopia waxaad ka soo qabanaysid ma naqaano balse si fudud waxaad ka soo qabanaysaa waxa ay madaxdaadu mar walba Ethiopia ka soo qabtaan sidaa daraadeed ku soo dhawaaw Ethiopia tikidkaagana waxaad ka helaysaa xarumaha dawladda Ethiopia hoos yimaada ee madaxtooyada maamul goboleedkaaga amaba madaxtooyada dawladdaada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalka dhanna waa kaftan waa saaxiibkiin Axmed Kadiye oo khayr badan iyo caafimaad idin rajaynaya ciao